halkani waa BBC London oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-ka iyo barta internetka bbcsomali.com. duhurnimo wanaagsan khiyaartaana dhegaysanaysaa saacadda geeska Afrikada bari waxay iminka tilmaamaysaa labadii duhurnimo. qodobada barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir maalmihii la soo dhaafay u socday xubno ka socday beelaha Soomaali Bantu ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaa shirkaasi ka soo qayb galay salaadiinta, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanada ay xubnaha ururada bulshada qaarkood. waxaan looga arrinsanaya mustaqbalka siyaasadda ee beesha iyo arrimo kale. wariyaha BBC ee magaalada Nairobi Maxamuud Cali ayaa waraystay mid ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi, Maxamed Nuur Shambara. xal u helidda mustaqbalka bulshadeynta Soomaali Bantu iyo siyaasadda iyo mideynta iyo dhaqamada iyo waxyaabaha ka maqan iyo mowqif si looga qaadan lahaa dastuurka oo hadda la ansixiyay oo ku salaysan 4.5. Soomaali Bantu maxaa ka maqan? Soomaali Bantu absolutely siyaasad ahaan dad jira inaysan ahayn ayaa meesha lagu xusay, dastuurkana ku qoran. waxbaa ka maqan, dal iyo dadnimadooda iyo sharaftooda meesha ka maqan. dastuurkan qabyada ah baa waxaad leedahay xaqoodii buu meesha ka saaray. waa ka saaray mid diini ah muslim ay qabanna ma aha arrintaas ayada ah. sida muuqata dad dibadaha ka imaadaa tihiin muddo badanna wadankii waad ka maqneedeen, marka maxaad soo kordhin karaysaan? xaalad kale guurna waa la marayay. waxaan soo kordhin karnaa wadanka maanta wuxuu u muuqdaa siyaabihii Afrika waagi hore la dhihi jiray oo gumaysiga waqtigiisa bob oo qeybso ama scramble of partition of Africa oo kale. hadda waxaa socda wadanka Soomaaliya khaasatan koonfurta, the scramble and partition of southern Somalia ayaa ka socda. in la kala qaybinayo, in la qaybsado, la qaybsanayo oo la maamulinayo, annagoo tixgelinteeni meesha ka maqan, rabitaankeena meesha ka maqan, jiritaankeena meesha ka maqan, sharafteena meesha ka maqan. sidaa daraadeed muwaadin Soomaaliyeed baan nahay. Soomaali waxaan ognahay inay Afrika ku taalo, anigana Afrikaanaan nahay. xaqeena anaga baan diyaar u nahay inaan qaadano. taariikhiyan waxaad leedihiin xaqiinii ayaa horey loo lunsaday muddo ka badan 50 sannadood ayaa xaqeena la dulmay. haatanna fursad weyn ay noo tahay maadaama wadanka uu u soo wareegay weji ah nidaam federalism ah iyo dowlad goboleeysi. fursaddaasa noo muuqata inaan ka faa'iidaysano wadankana aan u soo kordhino wax fiican. anagoo hadda wixii dhacay aan dib u eegaynin waqtina looma hayo, hase yeeshee taariikh bay noo noqonaysaa, waanu keedaynaynaa. laakiin waxa hadda horteena yaalla ayaa ah inaan annaga dhulkii dadkii lahaa koonfurta, dhulka beeraha la kala sheeganayo, in annagana mabda'aas dhulka annaga naga maqan, annagana diyaara u nahay dhulkeeni saacadan. fursad baad haysataan baad leedahay. qabanqaabadii shirkii wafuuddii ansixin lahayd dastuurka ayaa socda. waxaa kaloo jirta in siyaasaddii loo tafaxiitay oo laleeyahay bisha August dabayaaqadeeda doorasha ayaa dhacaysa. kaalin intee dhan baad arrimahan ku leedihiin? kaalin aan hadda aan ku leenahay male unless ama ilaa odayaasheena dalman dastuurkan ay dib u fiiriyaan, maadaama annaga odayaashii aan ahayn, dhalinyaradii aqoon-yahaninta siyaasiyiinta safka hore ku jira aan nahay. taa maxaad ka qaban karaysaan marka? taas waxaan ku qaban karnaa haddii odayaasheena dib loo tixgeliyo ayagoo ku kooban beesha intii loo rabay salaadiin, ugaasyadii intii lagama maarmaanka ah oo matela beelaha Soomaali Bantu oo 9 gobol ka soo jeeda, oo jubbooyinka, shabeellooyinka, Minjoohar ilaa Hiiraan, hataa Baay Bakool wixii nooga jiro oo Soomaali Bantu ah. sharaftoodii haddii dib loo soo nooleeyo oo lagu ixtiraamo, in lala kulmo, dastuurkaasna ay dib u eegaan, ay noo soo gudbiyaan waxay la gudboon, annagana wixii ay noo soo gudbiyaan waxay nala gudboon waan ka ansixinaynaa, annagana waan ka qaadanaynaa. Maxamed Nuur Shambara oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shir ay beelaha Soomaali Bantu ku yeesheen magaalada Nairobi ee dalka Kenya u warramay wariyaha BBC Maxamuud Cali. weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee BBC London.